السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين برواني ما أنت ماشي أن جوج ميل ديل معها وزيارة الشيخ أويسو سدا وجدان دمان كسر دوادا يا إذن هاي حرفاني ما أنت رتا عيال معناها هذا عيالات مجرو مرك عادي وجدين زيارة الشيخ أويس إسكسونا قد وعن جايس ويل وحن جوجنا زيارة الشيخ أويسو ما أنت حماسة aad marso goobi karo inkastoo aan shiishiixo faanteen dad badan abuuxa meeshan hadda waxaan rabaa inaan sameeyo wareysi laakiin qof ayaan balaahay billaah عليك marka waa isku soo noqon wacan mar labaad meelahan idin tusaa siyaarada sida loo buuxo iyo khalqiga dadka inta ay joogaan la socod wacan dadka aad guys saan soo socday baaba ayaan aragnay marka asiga ayaan xoogaa ka wareysan doonaa ziyaaradan iyo qofka loo dhigaayo macnaa maadaama si aad nooga cilmi badan yahay oo aqoon saa'id oo leeyahay hay baaba ku soo dhawo microphone السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي الملك سمير الجوكتان ما أنت وحن جوجنا زيارة شغال جويس أيها سوق جوجنا يا مدة اللو مع الموت أيها زيارة سعد مش سومري ما أنت أو قلبتان أربعة وجو وايه زيارة سنة كسته مولود سده إلى باتنك مولود أيها سوق جوجنا شيخ وحوك الدوجنا البيولي لكن وحال زيارة مقالنا أو كل شيء براوي أو كل شيء شيخة هدنا زيارة سنة كسته مركي لقارو وهذا خبطة ما أنت أوكله عاديات مركز الشيخ عاد وين واي أو مقالة براو أو معناها عاد لو يقان وشيخ لو يقانو شيخ عجويس بن شيخ عجويس بالي بن شيخ الويس قادرية واي مركز شيخ وارية خانة مركز وحكنا شيء براو sidoo kale ataa waxaan maqlay in loo imaanayo macna ziyaarada hadda aan joogno gobolada qaar in loo imaado si ziyaarada loo qayb galo maadaama ziyaarada mar hore biyoole la aadi jiray hadda waxa waaye duruuf ayaa keentay mal aadi karo meeshii oo asaga ku dhashay baraawe ayaa lagu qabtaa sanad kasta maanta oo kale oo 23ka ku beegan bisha mawluud ayaa la qabtaa sanad kasta waa wareeg waaye sanadkan زايد يا معنا لك سو خيب قالي سيدا أيني موقته مال كستا مال على يا لقيم أدي أدو وجدنا بابا أدي أدو وما سنتها وراسي أنا سيسي ما بابا أودي أدي أدو وما سنتها وراسي أنا سيسي وأنا كاج ما تعلني فرصة سلامة يسيا وسلامة مال كستا مال على خفك يعني كسايو خفك يا كسينب وسلام أشوف قد بنايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير aadiyaad maanta mashxarada magaalada baraaw mana soo koobi karo ilaa ziyaarada qof aad u weyn oo aad noogu weyn sheekh weyn oo ahaa sheekh Aweys ayaa maanta ziyaaradiisa ay tahay aad waana ku faraxsanahay wallahi bilaa ma soo koobi karno aad marka waa idin salaameena mar kale hadana waa inaan aadna meel kale let's go ilaa hadda wili waa isku dhigay ma fahanteen walaalo siyaaradii aad u socdo dadka waa kala kacsan bilaa عليك magaalada ilaa iyo intaas khalqi ay buuxaan marka waa dadkan yow وأوجدان هردا أضيجي oo la dhahay baabuudi waa sidii uu ni sheegay aad iyo aad dadka
meeshaan dhan waa buux dhaafiya ma fahanteen meel barxad aad u weynaan joognaa sidaas ay tahayna meel oo macnaha aad istaagaysid male meel walbo dadkii saan u dhex mashaaxayo sidoo kale ziyaaradan rag iyo dumarba waa yimaadeen maxaa yeelay ama because shiikhan wuxuu ahaa shiikh aad u weyn haddana meesha ziyaarada loogu dhigayo waa magaaladii uu ku dhashay ee magaalada Baraawe mar labaad haddana waxa aan arkay qofkan horta waa awowgeyga kuudhe marka qofkan ayaa wareysay haddana wuxuuna warbixin doonaa ziyaaradan Sheekh Aweys iyo macnaha qaabka uu dhacdo mar walbo iyo sanad walba markii la gaaro 23 bisha ee Mawlid maanta sida ay ku beegan tahay marka asiga ayaa warbixin iyo faahfaahin naga siin doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka soo hadlaynaa waa bannaanka Sheekh Aweys ziyaartiisa maanta qaatimadii ay ahayd banaanbaxi maasha Allah khalqigaanna arkaysid ziyaartay u soo banaanbaxan haddana ziyaartii way gashay sanad walbana saana loo geliyaa owlidii ilaahay aa karaameeyey marka sidaas darteed annagana dhammaan khalqigaan cid iskugu yeertay male waxay iskugu yimaadeen ziyaartii Sheekh Aweys marka insha Allah way soo socotay hadday dhammaatay sidaa arkaysid bannaankan waxa taagan ziyaartaa loo yimid haddana ilaahay waxaan ka baryaynaa sanad dambe inuuna gaarsiiyo oo sidaan isi ka daran sheekha aan u siyaarano meel walba aad joogtiinna waa idin salaamaynaa marka waxaa ogaanaysiin ziyaartu waxay gashaa bishaan mawliidka ah 23 bisha markay tahay marka insha Allah idinkana maartay meel allaala meesha aad jirtaan waa salaamantihiin salaan ka bacdigeeda marka waxaa idin sheegi lahay walaalaheenni iyo maartay culummada wixii kor jira dhammaan inay la socdaan insha Allah ziyaarta waxaa ku soo tari kartaanne ku soo tartaan insha Allah marka hadalkayga meesha ugu baxaya sanad dambana sidaan oo kale isi ka daran ayaan u soo duuweynaa insha Allah haddii ilaahay ka raali noqdo wabilaahi tawfiiq aad iyo aad u mahadsan tahay baaba barnaamijka warbixinta inta aan siisay iyo sida aad u gudbisay barnaamijka aad iyo aad ugu mahadsan tahay insha Allah idinkana waa salaamantiin ma sha Allah sidoo kale qays ugu dambeyn guys waa u jeedin gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay maadaama meeshaan mashxaradeeda aad iyo aad ay u weyn tahay intaan ka badanna macnaha aniga ayaa bardoonay inaan sii fiirsado intaan ayaa idinku talagalay inaa idinkana aad hawada igala socotaan macnaha aad daabataan aad iyo aad u mahadsantiin مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته see you next video